dad badan oo imika sida adigoo kala ayaa soo halgamay kulmiye kaalin waxa la ku soo qaatay haddana dad badan oo aan iyagu aan kulmiye ku jirin ayaa markii dambe dawladda lagu soo daray maxay taasi ku dhacday taasi waxay ku dhacday haddaan waxoogaa ka arinta ka hadlo si ballaaran uga hadlo siyaasad u qarsoon baa jirtay Axmed Maxamed Siiraanyo iyo koox isaga u gaara markii xisbiga kulmiye ku guuleystay doorashadii ayaa wuxuu Axmed Maxamed Siiraanyo ku tallaabsaday in uu ka takhaluso xisbiga kulmiye dabadeetna oo u leexdo dad kale oo aan xisbiga ahayn laga soo qaato waxa la keenay dad ka tirsan xisbiye kale qaar udaha qaar udubaha qaar dahabshiil keenay baa jiro fara badan waxa weeye markii xisbiga kulmiye isweydiiyay xisbigii wax Soomaaliland la yiraahdo iyo Soomaaliya laga wada hadlayo ajanday ma jiro waa midnimada ku sareysan runtiina waa midka xaqiiqada ah ee madhaafaanka ujeedada laga leeyahay dadka loo soo jahwareeriyay xisbiyada loo soo babriyay kulmiye looga tagay doorashada loo qabtay dadka la iskugu diray waxa weeye nin ganacsada ah oo dahabshiil la yiraahdo oo bangi samaysan doona oo bangigaasina bangiga Federal of Somalia ayuu la wareegi doonaa sida bangiga England oo kale iyo bangiga federaalka ee Mareykanka oo kale waa private marka si au mataqana bangiga u samaysto awoodda Soomaaliya ay gacanta ugu qabtaan Siiraanye iyo rabaciisa Siiraanye iyo kooxdiisu oon oran karo labeen qoys bay la baxeen labeen qoys oo la taliyaasha ah oo doonaya mustaqbalka soo socda in ay la wareegaan awoodda iyo hoggaanka iyo talada Soomaaliya oo dhan ay kuna yaraatay Somaliland oo ay leeyihiin haddii Somaliland sii jirto waayo Somaliland geedi socod dimuqraadiyad baa ka jira isu tanaasul baa ka jira isdageysi baa ka jira wada shaqayn baa ka jirta laakiin si aynu awoodda u qabsano haddii kale dee baraa doorashada laga qaadaya si aynaan doorasho daba uga bixin awoodana uga tagin in Somaliland Soomaaliya lagu daro dabadeetna Soomaaliya lafteeda aynu qabsano oo ah sidaan ku qabsanayna xagga dhaqaalaha mar haddii bangiga federaalka la sameeyo oo dahabshiil iyo Siiraanyo ay labaduba ma garanaysaa shuru ku yihiin sida dadku sheegayaana la leeyahay waxa weeye 30% ayuu Axmed Maxamed Siiraanyo ku leeyahay bangigaasi soo garamaysid iyo dahabshiil bacmushtarkiisa oo si arinta loo hirgeliyo ayaa Somaliland arrinkeedii iyo taladeedii looga dhaqaaqay marka waxa weeye nimankii dadkii kale shicibkina jawharba ku dhacayo hoggaan la'aan baa ku dhacday taasi marka waxay sababtay in dariiqu doonayay Axmed Maxamed Siiraanyo uu marsaday oo shirkii ka qayb galay dadkana been loo sheegay in shirkaasi Somaliland iyo Soomaaliya loo wada hadlayo laakiin hadafku uu inta ka fogaa waxa kaloo inta soo raacday oo arkaynaa maanta in doorashadii la qabtay doorashadii midaheedii waynu haynaa in min gees ilaa gees reerihii wada deganaa ay isku wada degan yihiin taasi waa tu loogu talagalay in lagaga faa'iideysto hadafka la rabo oo ah in ma garanaysaa maxay ahayd Somaliland laga noqdo waynu maqlaynay shalay iyo dorhaad iyo maalintii kasii horeysay Mareykanka markuu tagay madaxweynihii in Mareykankii qaabilay اعترافي يري عدة قلنا الصومال وصومرنا أي تحي دولة الفدرال كا دولة الفدرال كا هيدا أي وده هذا لقى شيء Somaliland dadkiina ay sugayaan oo ay isleeyihiin waxba idin maqan xasay yeeshay ay xukuumadii federaalka cadayso tiri wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya waa mid ku salaysan oo qura midnimada Soomaaliya wax Somaliland la yiraahdo iyo Soomaaliya laga wada hadlayo ajanday ma jiro waa midnimada ku salaysan runtiina waa midka xaqiiqada ah ee madhaafaanka ujeedada laga leeyahay dadka loo soo jahwareeriyay xisbiyada loo soo babriyay kulmiye looga tagay doorashada loo qabtay dadka la iskugu diray waxa weeye nin ganacsada ah oo dahabshiil la yiraahdo oo bangi samaysan doona oo bangigaasina bangiga Federal of Somalia ayuu la wareegi doonaa sida bangiga England oo kale iyo bangiga federaalka ee Mareykanka oo kale waa private marka si au mataqana bangiga u samaysto awoodda Soomaaliya ay gacanta ugu qabtaan Siiraanye iyo rabaciisa Siiraanye iyo kooxdiisu oon oran karo labeen qoys bay la baxeen labeen qoys oo la taliyaasha ah
oo doonaya mustaqbalka soo socda in ay la wareegaan awoodda iyo hoggaanka iyo talada Soomaaliya oo dhan ay kuna yaraatay Somaliland oo ay leeyihiin haddii Somaliland sii jirto waayo Somaliland geedi socod dimuqraadiyad baa ka jira isu tanaasul baa ka jira isdageysi baa ka jira wada shaqayn baa ka jirta laakiin si aynu awoodda u qabsano haddii kale dee baraa doorashada lagaga qaadaya si aynaan doorasho daba uga bixin awoodana uga tagin in Somaliland Soomaaliya lagu daro dabadeedna Soomaaliya lafteeda aynu qabsano oo ah sidaan ku qabsanayna xagga dhaqaalaha mar haddii bangiga federaalka la sameeyo oo dahabshiil iyo siiraanyo ay labaduba ma garanaysaa shuru ku yihiin sida dadku sheegayaana la leeyahay waxa weeye 30% ayuu Axmed Maxamed Siiraanyo ku leeyahay bangigaasi soo garamaysid iyo dahabshiil bacmushtarkiisa oo si arinta loo hirgeliyo ayaa Somaliland arrinkeedii iyo taladeedii looga dhaqaaqay marka waxa weeye sidaasay ku timid hawsha tan dheer aynu maanta arkayno isna aan maanta Hargeysa ka bilaabmay dadkii la iska hor keenay ummadda la kiciyay gadoodka keentay isna aan ka yimid maxay ahayd sayla arrimihii ka dhacay maxay ahayd laascaanood arrimaha burca ka dhacay arrimaha ergaaba ka dhacay arrimihii berbera ka dhacay la jeedo qabyaalad toos la iskaga hor yimid waxa soo dhan in dadka inta la isku diro tiyo iswada nacday tiyo iswada haysata kalarka si toos loo geeyo marka waxay ilaa haday soo jeedaan oo ay sidii ay tahay oo arrimuhu ay yihiin ma geen karno waa inaan horta dee asqaysiinaayo qasnaayo qof xagtaayo qof iska laalaadiya sidaasaa keentay markaa magaranaysa maxay in Axmed Maxamed Siiraanyo oo uga leexday doorashadii wuxuu ku ballan qaaday daartii uu ku dhaartay kitaabkii uu gacanta saaray waxaan si la yaabanahay oo ummadda Somaliland weydiinaya war ma nimanka calanka tawxiid ku qoran yahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku qoran tahay ka door bidaya inay hoos tagaan calan aan tawxiid ku qornayn oo aan waxba ku qornayn oo sharci dood ku qoran yihiin oo amala shaydaana oo bluya oo dhibta inaga gaadhay iyo dhibaatada inaga timid aynu ogeyn waxaan saleeyahay haddaynu reer Somaliland nahay 23 sano waxaynu ku badbaadnay calanka tawxiidka ee suran maalinta laga dajiyo amba se laga garab suro calanka bluega ee Soomaaliya maalinta dhibaatada ugu horeyso ugu koowa waxaan leeyahay war calankaasi waayo Ibrahim waan gartay adiga oo markaasi ka faa'iideysanay Jaaniskan fariinta aad halkan u marinayso dhageystayaasha ku dhageysanaya maxay tahay waxa weeye fariinta aan u marinaya marka hore horta waxaan ugu bashaareynaya in aan urur sameeyay la yiraahdo Somaliland Independence and Sovereignty Establishment Organization haddii af Soomaaliga lagu sheego waxa weeye waa ururka badbaadada madax banaanida iyo gooni isu taaga ee qaranimada Somaliland marka waxa weeye waxaan u dagaalgalaynaa sidii Somaliland ay uga badbaadi lahayd xukuumadda Axmed Maxamed Siiraanyo oo aanay xamar u tagin sidii Somaliland aanay ugu milmin Soomaaliya sidii Somaliland ay madax banaanideedu ay gaar isu taag lahayd marka waxaan leenahay dadka reer Somaliland halka naga dhageysanaya guda iyo dibadda war fadhiga ka kaca war dalkii wuu socdaa war goor dambe in la kaco oo la hambabaro ama tarto mar dambe oo la hambabara waxba ma keento maanta si Somaliland meel fog baa laga dooni doonaa haddii aan maanta fiiro dheer la yeelan oo aan waxa soo socda la fahmin waxaan leenahay xukuumadda lafteeda arrin baan u soo jeedinay xisbiga kulmiye war waxaad ku ballan qaadeen oo fiya waxa constitutionka ku jirta in la furo xisbiyada way ku qornay waxa weeye constitutionka in dib loo eego oo constitutionka wax laga bedelo oo laga dhigo oo update gareeyo oo wax laga bedelo oo lagu daro in musharax madax banaan xisbiyadana la kordhiyo oo dadka jaanisyo badan la siiyo saddexdan xisbi ee maanta lagu soo ururiyay waxaan u arkaa Axmed Maxamed Siiraanyo uu salaxday oo isagu adeegaya marka waxaan leenahay xukuumadda war dalka Somaliland geedi socodkii Axmedow aad muddo badan ku baaqaysay ee aanu kugu garab taagnayn ee aanu kula halgamaynay ee Ilaahay nagu guuleeyay war wixii aad ku ballan qaaday ee dadka u sheegay kaga dhabee oo runta sheeg oo waxa weeye full constitutionka oo dadka
maanta hamiga siyaasadeed leh ee golo wakiil raba ee madaxweyne raba dadka lagama xigo war ha ku soo xidhin waxaad yeeshaa si jaaniska si ummadda u kala degto waxaan se leeyahay dadka reer Somaliland ceelo uma qodna ciidana uma maqna war fadhiga ha laga kaco war arrinka waxa laga qabto war eediyeenan caajisin war kuwa UK waxaan leeyahay war waataynu markii horeba riyaal joogay halgamaynay waataynu Ingiriiska wareerinay waataynu maalin walba mataqaana maxay ahayd samayn jirnay administrationka ururada samayn jirnay waataynu meel walba aadi jirnay waataynu safaaradaha iyo cid walba ka hortagi jirnay waataynu u halgami jirnay goonistaga Somaliland war yeeynaan fadhiine siiraayo kuma halayn karno wasiirkiisa kuma halayn karno war fadhiga ha laga kaco oo Somaliland hala badbaadiyo waxaan leeyahay tala qaranna ha laga yeesho aad iyo aad baad u mahadsantahay Ibrahim waad ma adaa mudan dhageystayaal intaasi waxa inoogu soo gabagaboobay barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa waraysigii aanu la yeelanaynay gudoomiyihii hore ee UK Ibrahim Nuux Hussein oo aanu waraysanaynay isaga oo ku sugan magaalada London waraysiga waxa idin qaadiyay oo barnaamijka idin daadihinayay aniga oo Cadaani iyo stuudiyaha Radio Hadwanaag ee magaalada London dhageystayaal intaynu barnaamijka mid la mid ah ku kulmaynana waa guud ahaan bahdii Hadwanaag oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo